بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعينه على أمور الدنيا والدين، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والاليال كسر دواد برنامج كني القصص أما قصص وعبرة قصوين يكو عبرة قادش waxaynaanu soo qaadan doonaa haddii ilaahay inoo idmo insha allah qisooyinkii la yaabka lahaa, gaar ahaan saxaabigii xandaleh ibn abi caamir oo ahaa ghasiililmalaa'ika, saxaabigii ay malaa'igtii raxmaanku ay dhaqday meydkiisii. saxaabiga kan wuxuu ka qayb galay dagaalkii uxud ee dhacay sanadkii 3aad ee hijrada. dagaalkaas saxaabo badan ayaa ku shahiiday oo shahaadada ku qaatay, oo ay ka mid ahaayeen saxaabigii weynaa geesigii asadullahi wa asadu rasuulih, libaaxi ilaahi iyo libaaxi rasuulka, waa xamza ibn cabdilmutalib uu ku shahiiday. waxaa kaloo ku shahiiday muscab ibn cumayr oo ahaa awal safiir lilislaam, safiirkii koowaad ee islaamka. waxaa kaloo ku shahiiday anas ibnu nadr, saxaabi weyn oo ka mid ahaa saxaabadii reer ansaareed, iyo saxaabigii kale ee u gariiray carshiga saxaabigii kale sacd ibnu rabiica radia allahu canhum. isagana markuu dhimanayay nebigu calayhi salaatu wasalaam uu ku lahaa, sacd ibnu rabiica maxaad helaysaa? ee uu lahaa, waxaa ii uraya udugii jannada. waxaa kaloo ku geeriyooday dagaalka kan xandaleh ibn abi caamir radia allahu canhu, oo ah saxaabiga aynu ka warami doono qisadiis. saxaabadaasi markii ay geeriyoodeen, nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi, ilaahayow kuwan aniga ayaa markhaati u ah oo uga marakacaya maalinta qiyaam. kadibna saxaabigii xandale ayaa saxaabadiibaa soo qaaday meydkiisii. marka waxay ka heleen meydkiisii isagoo qoyan, biyo qoyan bay heleen. meeshuna waxay ahayd meel saxara ah, waani biyo oolin oo aan roobna muuddi'in. marka meydkiisii waxay ka heleen iyo agagaarkiisii iyo hareerihiisiiba biyo yaal oo aad moodid in ruuxa kan loo qubeeyey. dabadeedna waxaa u tageen rasuulka ilaahi moxamed sala allahu calayhi wasalam. waxay dhaheen, rasuulka ilaahayow, ninka xandale waxaad moodaa in loo qubeeyey oo ay cidi maydhay, oo hareerihiisa biyaa yaallay iyo jidhkiisiba biyaa yaalla. subxaan allah, biyaa loogu qubeeyey. nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam, ghasalathu lmalaa'ika, war malaa'ig baa dhaqda, ninkan warkiisa doona. subxaan allah. dabadeedna saxaabadiibaa waxay yidhaahdeen, yaynu warkan ninkan soo weydiina. kadibna xaaskiisiiba u tageen, marwadiisii iyo haweenaydii uu qabay. wuxuuna guursaday habeenka intaanu dagaalku u dhicin gabadh la dhaho jamiila bintu cabdillahi ibni umay ibn abi salool, oo waxaa dhalay munaafiqii weynaa ra'sul kufri wannifaaq, munaafiqii weynaa ee gaalnimadabada madaxda u ahaa ee cabdillahi ibnu ubay la odhan jiray ayaa gabadha tan dhalay, oo waxaa la dhahdaa jamiila. iyadu laakiin gabadh munaafiqada mahna waxayd gabadh saalixad oo wanaagsan oo saxaabiyaadkii wanaagsanaa ka mid ah. marka habeenkaasi wada aqal galeen. dabadeedna waxaa dhacday subaxiiba dagaalkii uxud. dabadeetana subaxii markii dagaalkii lagu dhawaaqay, qayladii ay yeedhay, ayuu kasoo booday isagoo degdegaya gurigiisii. marka waxay tidhi jamiila, markii la weydiiyey, saxaabadii weydiisay, saxaabigani wuxuu soo baxay isagoo oo janaabo qaba. dabadeedna saxaabadii waxay u sheegeen rasuulka sala allahu calayhi wasalam. nebiguna wuxuu yidhi, waxaan arkay baa sixaaf, yacni baafaf ama saxano biyo lagu sido oo xagga samada ka imanayo loogu dhaqayo saxaabiga kan meydkiisii, oo malaa'ig baa u qubaysay oo u maydhay, subxaan allah, oo u dhaqday. saxaabiga markaa karaamooyinka noocaas ah ay ka dhaceen, saxaabi weyn buu ahayo qaaliya. ilaahay naxariistii janno ha ka waraabiyo, ilaahay raallina ha ka noqdo. wuxuuna ka mid ahaa 4 saxaabi ay saxaabada reer ansaareed, gaar ahaan qabaa'ilkii reer aws, ay ku faani jireen, odhan jireen, annaga waxaa naga mid ah nin ay malaa'igtii raxmaanku ay u dhaqdayba meydkiisii. oo waxaa kaloo naga mid ah saxaabigii kale carshiga raxmaanku uu u gilgilmay markuu
geeriyooday oo waxaa naga mid ah saxaabigii kale shinnidu ay difaacday markii isaguna uu geeriyooday oo waxaa naga mid ah bay odhan jireen saxaabigii kale markhaatigiisu uu u dhigmayay 2 nin subxaan allah 4 nin ay tirin jireen oo saxaabada kale markaa reer ansaarida iyaguna ka mid ahaa khasrajiha iyagu waxay ahayn 4tan hore reer aws bahan kuwii kale khasrajiguna iyaguna waa kuwii ku faaniyeen saxaabadii kale xufaadul qur'aanka ah yacni saxaabadii kale qur'aanka xifdisana ay lahaayeen annaga waxaa naga mid ah zayd ibnu thabit ninka qur'aankana aynu akhrinay baa soo jamciyey keenay zayd ibnu thabit radiyallahu canhu waxaa naga mid ah bay dhaheen ubay ibnu kacab xaafid weyn qaari weyn oo qur'aanka kariimka xifdiyey markii nebigu noolaa sala allahu calayhi wasalam oo waxaa naga mid ah bay dhihi jireen mucaad ibnu jabal subxaan allah mucaad ibnu jabal xaafid weyn aqoonyahan weyn caalim weyn oo ka mid a culimmada waaweyn ee muslimiinta saxaabi weyn oo qaaliya ahaa oo isaguna qur'aanka xifdiyey nebiga oo nool marka saas isugu faani jireen oo ragga wanaagsan bay isugu faani jireen qabaa'ilada reer aws iyo reer khasraj oo wuxuuba isku noqonaya reer ansaareed waa labadii qabiile waaweynaa magaalada madiina deganaa ee nebiga u hiiliyey markuu nebigu usoo hijrooday sala allahu calayhi wasalam marka 4 tan reer aws ay ku faanayaan waynu garanay xandale oo waa saxaabiga aynu ka sheekeynayna aynu lahayn isaga malaa'igta raxmaankaaba dhaqday markii uu geeriyooday waa kuma saxaabigan haddaa carshiga raxmaanku uu gilgilma ama u geriyo waxa weeye sacd ibnu mucaad radiyallahu canhu sacd ibnu mucaadna nebigu markii uu geeriyooday wuxuu dhahay ihtaza carshu raxmaan limowti sacd ibnu mucaad carshiga raxmaanka ayaa gariiray maalintii uu dhintay ama markii uu dhintay saxaabigan sacd ibnu mucaad radiyallahu canhu waardaa markaa saxaabi qaaliya buu ahaa carshiga raxmaankaaba soo dhaweynayay ruuxdiisii waxaa kaloo ka mid ahaa baynu nidhi 4tii saxaabiye reer aws ay ku faanayeen saxaabigii ay shinnidu difaacday oo muxuu ahaa saxaabigan shinnidu difaacday waxa weeye caasim ibnu thabit waa saxaabi isaguna karaamooyin waaweyn ay ka dhacday oo wuxuu ka qayb galay dagaalkii badar kadibna nimankii reer quraysheed ninkii cadhada badan geliyey ayuu ahaa markaa gabadh magaceeda la odhan jiray sulafa ibnu sacd ayaa waxay ku dhaar gasho ballan ay ku qaaday in ay disho ninkan la dhaho caasim ibnu thabit oo markay disho weliba meydkiisa intay madaxa ka jarto jamjamada halkan madaxa intay khamri ku shubtay ay cabto subxaan allah arrintaasay ku nadarto ku dhaarat maalintii dambe ayaa caasim ibnu thabit 10 saxaabi oo hogaaminay oo ka mid ahaa dee xufaadil qur'aan kuwii xifdisanaa qur'aanka kariimka ayaa shirqool baa loo sameeyey markaa mantiqadan la dhahdo rajiic halkaas ayaa lagu shirqoolay oo lagu dilay marka caasim ibnu thabit markii uu dhimanayay uu dagaalamay rag badan bay ahaayeen uu la dagaalamay raggii dabadeedna isagoo dagaalamay ayuu wuxuu ku ducaystay ilaahayow maadaama aan subaxii hore difaacayay anigoo diintaada difaacaya la idilayo markaan dhintona ilaahayow difaac jidhkayga yacni wuu garanayaa gabadhii dee ballanta qaaday inay madaxiisaba khamri ay ku cabayso subxaan allah u fiirso markaa kufrigu intuu leegyahay walciyaadu billah dabadeedna dagaalkii buu galay calaa kulli xaal waa la dilay halkii buu ku shahiiday markii uu dhintay gaaladii waxay istidhi markaa kurta ka gooy oo madaxiisa iibiya oo gabadhii sulaafa ahayd u iibgeey dabadeedna shinni ama dabri wax la yidhaahdaba gebi jidhkiisoo dhan qabsaday oo difaacay ninka kan dabadeedna waxay dhaheen nimankii war waynu fadhiisanaynaa gelinka dambeynu soo noqonaynaa oo aynu madaxiisa qaadanaynaa oo lacag badan iyo xoolo badan bay ku helayeen 100 halaad ayay ku helayeen madaxiisa subxaan allah laakiin ducadii buu ilaahay ka aqbalay saxaabiga kan uu ku ducaysanaya uu lahaa ilaahayow sidaan u difaacay diintaada gelinkii hore jidhkayga u difaac marka aan geeriyoodo dabadeedna daad baa meel uu ka yimi aan la garanahaynin ayaa jidhkii ninkaa qaaday oo meel uu ilaahay ogyahay u geeyey raggii way soo noqdeen oo wuxuun bay is idhahdeen meydkii u yimaada mise maba joogaba subxaan allah waa kuwii markii dambe xitaa saxaabadu ay lahaayeen rasuulka ilaahay oo aaway saxaabigii caasim ibnu thabit me
في مقعد صدق عند مليك مقتدر بقرطوية إلهي الرسمي أهبو بوس كلي سبحان الله مركا صحابي قال عاصم بن ثابت وحكم ده الرجي أي صحابة رير أو سيكو فاني جيرين صحابي كله يسونا صحابي يدي أي كفاني جيرين رير أو سيعينو النري وحوي يسونا وانين أدق ميي مرخاتيجيس أما مرق مركو نقطة مشاهد مركو نقطة لبنين بوتيج ماي سبحان الله صحابي waxa loo dhan jiray isagana Khuzayma ibn Thabit isna wuxuu saxaabi reer Awsa marka saxaabigan waxa la sheegaa nabiga kaleey salaatu wasalaam ayaa nin buu wuxuu ka iibsaday faras marka faraskii uu ka iibsaday ninka faraska ka iibsaday waxa loo dhan jiray Sawa ibn Qays marka ninkan baa dafuro wuxuu aniga waxba lacag imaad siinin gamanaad iibsanin dabadeedna nabiga iyo ninkan oo is haysta ayuu Khuzayma u soo galay radiyallahu anhu markaasuu yiri ana marxaati ah oo nabiga Ilaahay marakacay markaasuu la yiri mar hadii aad nabiga Ilaahay marxaati haysatid ninkan xoolaha waad siisay saasaan ku dhamaatay hawshii nabigu wuxuu ku yiri markaa Khuzayma meesha aan joogay يعني ماشان وحكو كلا قادن إني أدوكو ما تشوفينه حاضر ما دهين سيدي بد مرخاتية مرجعون نقانيس وحده خزيمة رضي الله عنه وارضى رسولك إلهيو ما وحكستميان كارميست وحكستو إلهي كوكو سودتشيو أيان كارميستايو وحقيقه مركا ما واحد إلا هاي قرميسنا ريرو الدنيا مدور درهم مدور يتمن درهم أدننسيسي هاي قرميسنا أنا مرخاتي أبوي سبحان الله نبي وكيلها صلى الله عليه وسلم عدة ومرخات النقد خزيمة كفلا فحسبه من شهد عليه خزيمة فحسب عدة ومرخات أما مرقون نقد خزيمة كفلا marka saas darteed ba waxa shacab baxday inuu maragtiisu ama marxaatigiisu u labanin u dhigmay waxa kale la yaab ahayd Zayd ibn Thabit saxaabiga reer Khazraj inuu sheegay in lahayn quraanka ayuu jamci oo waki Umar ibn Khattab iyo Uthman ibn Affan ba ay u direen in uu soo jamciyo oo uu kulmiyo aayadka quraanka marka sax aayad kasta oo kamid ah kitaabka quraanka ah waxa marag iyo marxaati looga dhigayo Zayd ibn Thabit uga dhigay laba kamid ah saxaabadii waaweynada saxaabadii rasuulka oo markuu aayad uu qorayo ma tusaale ahaan qul huwa Allahu ahad laba saxaabi ba ka marakacayo oo laha waxaanu ka maqalnay qul huwa Allahu ahad oo ah aayad kamid ah aayadka quraanka rasuulkii Ilaahay Muhammad ban afkiisa ka maqalnay marka aayad kasto kamid ah quraanka laba saxaabi buu marxaati u hayst markii dambe uu quraankii uu waday ayuu aayad kamid ah hal saxaabi ayuu marxaati u helay subhanallah ama uu waayiban leeyahay marxaati aayad kamid ah quraanka kariimka marka Khuzayma ayaa yiri ana marxaati u ah markaas waxa la yiri Khuzayma waxa weeye waa ninkii nabigu laha sallallahu alayhi wasallam man shahida alayhi Khuzayma fa hasbu cidda marag iyo marxaati u noqday Khuzayma ku filan idan dabadeedna sidiiba aayadii lagu qoray oo kitaabka quraanka ee raxmaanka ay uga mid noqotay sababta waxa marxaati noqday Khuzayma subhanallah la ilaha illa allah markaas ragaasi waxay kamid ahaayeen ragii ay reer Aws oo kamid ah saxaabadii waaweynay saxaabadii rasuulka ridwanullahi alayhim ay ku faani jireen intaas inuu soo gabagabeynaa wallahu a'lam saxaabigii weynay Hanzalah rasiil al malaa'ika وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته